halkan waxaan ku fadhinaa saddex qareen oo qareenka ahaa qareema ka ahaa dacwad ay ku eedeysan yihiin 15 eedeysane oo dhammaantood reer Ceergaabo dumar iyo carruur badan loona haysto dhammaantood qodobka 434 meelisdil loo haysto nin la yiraahdo loo jiray Cabdixakiin oo dhalinyaro ahaa oo dhintay 20kii bishii Oktoobar sanadii 2016 ka Ceergaabo lagu dilay dilkiisa loo haysto ayaan saddexdeena qareena ka ahayn dacwadaas waxay ka socotay maxkamadda gobolka qaybteeda tashiga markii hore way raagtay markii labaadna waxay dhacday in dab badan ku yimaadaan waad garanaysaa 9 bilood bay imika maraysaa haddana caqabado badan baa ku yimid kuwa badanna waxaanu ku dadaalay inaan xalilno ama aan ka soo gudubno caawa waxna u kala faahantan waxaa noo muuqatay inay dacwadii caqabadaheedii isfuuleen oo aanay suuragal ahayn inay halkaa ka sii socoto dhinaca dacwad oogista ayaanu caqabadaha u tirinaynaa dhinaca dacwad oogista markaan leeyahay waxa weeye bilayska cidda u qaabilsan oogista dacwadda ma bilayska oo dhan cidda dacwadda oogista u qaabilsan iyo xaarilaanta xafiiskiisa gobolka Sanaag arrimaha awgeed maxkamadda tashiga wax way dadaashay aad bay u dadaashay rafcaan kula marar badan uu dhexdhexaadin iska dayay inuu hawsha ka sameeyo inkastoo marar ay haboonadii tallaabo la qaado aanu isleenahay waxa ka doorbiday dhexdhexaadinta waxa dhacday ilaa 6 fadhi inuu muran galo oo 6daba aan u tirinaynay dhinaca dacwadda iska soo horjeedno waxa dhacday in la xiro qareemada qaar in la dhaawaco sida aadan Axmed qareen Axmed aadan oo kale dhinaca fadhiya oo ay dhaawacyo iyo walaalada dhacay maxkamadda horteeda waxa dhacday in la xiray ugu yaraan markhaantiyo 4 in ka badan loo hanjibay maanta ugu dambeysay waxa maxkamadda gudaheeda ka dhacay maxkamadda furan dhageysiga socdo in maxkamadda gudaheeda markhaanti taagan halka maraga lagu dhaariyo in la yiraahdo hal la xiro xiraalta amarto maxkamadda tiraahdo halkan yaa laga xidhin laakiin maxkamadda gudaheeda laga xiray arrinteeda isu bedeshay muran iyo hamarkii maxkamadda loo hoggaansami waayay iyo waliba tallaabooyin kale oo ku qoran qoraalka oo halka ka akhriyo doono garyaqaan Saalax Colaad oo saddexdeedu la saxanay ugu dambayna maanta maxkamaddii waxay noogu muuqatay inaanay sidaa ku socon karayn taasi waxay nagu kaliftay inaanu halkan kala hadalno guddida cadaaladda iyo ciddii guddida anshaxmarinta qareenada wasaaradda cadaaladda cid kastoo khusayso in maadaama dadku u baahan yihiin cadaalad maadaama shicibku ka dhintay iyo kuwa noolba ay u baahan yihiin in si sax loo garsooro qofkii dambi galay in lagu qaado anuna isma lihin qof dambi galay ka difaaca laakiin wixii sharcigu qabo baanu hay'ad sharci baanu nahay wixii sharciga khilaafsan baanu ka cabanaynaa marka la isku soo duubo waxaan baaqan ugu talagalay guddida cadaaladda inaan gaarsiino in arrintan la soo farageliyo maadaama aanay suuragalayn in halkaa ka sii socoto loona soo diro guddi baadhiseed aniga oo garyaqaan Cali Siciid Jaamac ana guddoomiyaha ururka qareenada ee gobolka Sanaag magacayga waa qareen Axmed Aadan kiiska dhiigga ah ee aanu qareemada ka nahay ayaa waxa dhacday in dhacdooyin la yaab leh oo kiiska ku soo taxnaa lana soo bilaabmay ay ka dhex aloosmeen dhacdooyinka oo isugu jira hoggaansamid la'aan maxkamadeed ama awaamirtii maxkamadda agajuglayn iyo qabasho sharci darro ah oo lagula kacayay dadkii maragyada ka ahaa kiiska agajuglayn kale oo aan xad lahayn oo shacabka laftiisa dacwadda ka soo qayb galaya lagula kacayay arrimahan oo dhammaantood ka wada imanayay ama ka wada imanaya dhinaca xeer ilaalinta ama dacwad oogista dhacdooyinkan ayaa waxa ka mid ah in aniga laftayda laygu geystay tacaddi oo koox booliiska gobolka Sanaag ka mid ah maxkamadda horteeda ay si sharci darro ah oo arxan darro ah aniga igu garaaceen 10kii bishan 2017 arrintaas oo markii aanu gaarsiinay hay'adaha ay khusayso baaristeedii aan ilaa iminka waxba laga qaban
waxyaabaha la yaabka leh ee dhacdooyinka kiiskan ka dhex dhacay waxaa ka mid ah in si cad oo badheedha ay xeer ilaalintii isaga garab marayso hoggaamintii maxkamadda oo aad mooddo awaamirtii maxkamadda inaan loo hoggaansamayn ma aqoonsanin maxkamadda sidii rabitaankaygaan ku shaqaynaya ku soconaya waxyaaba dhacdooyin noocaasa ama habdhaqanno noocaas oo afkii sharci iyo habdhaqankii sharci baan ku wanaagsanayn ay dhaceen waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa waxay caqabad gelinayaan oo ragaadinayaan kiiska habsocodkii kiiska uu lahaa waxaanu marka laysku soo ururiyo aanu halkan soo jeedin iyo baaq uga diraynaa guddida cadaaladda jamhuuriyadda somalilan kiiskaas oo ah kiis xaasxaasiya oo dhiiga arrimahan ka dhex dhashay ee dhammaantood ka imanaya dhinacii xeer ilaalinta ama dacwad oogista haddii ay sidan ku sii socdaanna kiiskaasi waxaa ka dhalan kara arrimo aan wanaagsanayn waxaanu ka dalbanaynaa una soo jeedinaynaa guddidii cadaaladda jamhuuriyadda somalilan inay soo dhex galaan oo kiiskan sida ugu dhaqsaha badan loogu soo diro xaqiiqa raadis guddi baadha oo ogaata kiiska waxaa dhex asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah garyaqaan saalax cabdiraxmaan jaamac waxaan marka hore la qabaa qareenadan iga horreeyey ee garyaqaan cali siciid jaamac iyo garyaqaan axmed aadan baaqa ay soo jeediyeen dacwadda aanu ka nahay haddii labadekeeda leeyahay qareennada waxyaabaha ku yimi ee calqaladaha ah ee dhammaantood dhinaca haddii labadekeeda leeyahay dacwad oogista ka imanaya ayaa sidaa u sharxeen ayaan la qabaa waxaannu ku soo koobnaan doonaya halkan inaanu ka akhrino warmurtiyeedkii aanu wada saxeexnay ee aanu ka soo haddii labadekeeda leeyahay ka soo miidhnay dhacdooyinkii kala duwanaa ee haddii labadekeeda leeyahay ee ka dhexdhacayay fadhiyaddii maxkamadda waana sida tan kow kadib markii tiro 6 fadhi ah isla dacwaddan gudaheeda ay dhinaca dacwad oogistu u hoggaansami waayeen hoggaaminta maxkamadda ee ku xusan qodobka 99 xeerka habka ciqaabta kadib markii guddoomiyaha maxkamadda rafaanka ee gobolka sanaag aanu gaadhsiinay ka qareenno ahaan cabashooyin istaba jooga oo isugu jira af iyo qoraalba hase ahaatee aanu qaadin tallaabo xakamaynaysa xadgudubyadaas sharci ee aanu ka soo cabannay inkastuu isku dayey dadaallo dhexdhexaadineed guddoomiyuhu laakiin aan natiijo fiican yeelan lambar 3 kadib markii maragyadii dacwaddaas ay u xidhan yihiin ee ay ku eedaysan yihiin 15 eedaysane ee aanu qareennada u nahay la xidhay 4 ka mid ah oo 3 ka mid ah laga qabtay kaamboolka maxkamadda oo weliba mid ka mid ah fadhigii maanta maxkamadda oo furan oo garsoorka tashiga ahi ay fadhiyaan looga xidhay gudaha hoolka maxkamadda si khilaafsan qodobka 95 xeerka habka ciqaabta ayna xidheen dhinaca dacwad oogistu loona hoggaansami waayey amarkii maxkamadda ee ahaa inaan gudaha hoolka maxkamadda waxba laga xidhin oo ka mid ah qareennada eedaysanayaasha dacwaddan maxkamadda horteeda ay ku garaaceen koox ka tirsan ciidanka bilayska dhaawayana ugu geysteen wax tallaabo oo laga qaadana aana jirin ilaa hadda falkaas soo dhacay 10kii bishii 6aad 2017 qodobka ku xiga kadib markii isla fadhigii maanta oo ay taariikhdu ahayd 20kii bishii 6aad 2017 maxkamadda tashiga oo furan dhegaysigiina socdo ay xeer ilaalinta iyo bilayska ay isku dayeen inay xidhaan marag kayse yuusuf cabbaase oo isla koodhka maxkamadda barta maragga lagu dhaariyo taagan
taasoo dhalisay buuq iyo muran ka dhashay oo hoggaansamin la'aanta amarka maxkamadda uuna xeer ilaaliyuhu kaga falceliyey amarkii maxkamadda ma aqoonsani maxkamadda igama sarraysid adigu haa waan hubaysanahay oo waxaan sitaa baaskoolad qareennadu waa edab daran yihiin intuu taaftay baaskooladda oo haddaan maxkamaddu tallaabo ka qaadin annagaa ka qaadayna dhammaan ficillada iyo weedhaha oo xeer ilaaliyuhu isticmaalayay oo aannu u aragno inaanay ahayn af sharci af garsoor iyo af mas-uul toonna ayna caqabad ku yihiin geedi socodka dhegaysiga maxkamadda dhammaantood sidaa daraaddeed waxaannu guddida cadaaladda jamhuuriyadda somalilan ka codsanaynaa inay dacwaddan iyo arrimaha ku xeeran u soo dirto guddi baadhiseed si loo hubiyo waxa dacwaddan ku dhex jira ee ka leexiyey hannaanka caadiga ah ee dacwad qaadista maadaama ay dacwaddani tahay dacwad xasaasiya ah oo ay muddo 9 bilooda u xidhan yihiin 15 eedaysane oo isugu jira dumar iyo dhallinyaro da'yar ah isla markaana aanay suuragal ahayn inay dacwaddu sidaa ku sii socoto waxaannu kaloo ku baaqaynaa in la sii daayo oo xorriyaddoodii loo celiyo 4 marag ee kala ah 1 cabdisalaan cumar axmed oo xabsiga dhexe ceerqaabo muddo dhaaf ku ah dacwaddanna u xidhan oo marag ahaa 2 jaamac maxamed guriye oo hadda damaanad dabad joog ku ah oo isna dacwaddan loo xidhay marag ahaan 3 keesa yuusuf cabbaase oo maanta hoolka dhegaysiga dacwadda gudihiisa laga qabtay 4 iyo luul yuusuf warfaa dhammaan maragyadaas oo dambi ay galeen aanay jirin balse u ciqaaban marag furan xeeraantu jeclaysan waxaannu kaloo ku baaqaynaa in la suuliyo ficil kasta oo waxyeello ku ah madax bannaanida garsoorka ku dhaqanka sharciga iyo kalsoonida shacabku ku qabaan hannaankeenna cadaalad garsoor ee dhexdhexaadinimada ku sifaysan allah mahad leh